السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada saaxiibada halkaan naga daawanaysaan waa janaalkeena Fason FX haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarta si aad ugu soo mid noqotid like iyo share iyo commentina ha marnaan sidoo kale waxaa aad ugu mahadcelinayaa saaxiibada ugu dambeeya oo 24 saac ugu dambeeya nagu soo biiray waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Fason FX halkan waxaan kusoo gudbinaa xirfad kamid ah xirfadaha lagu shaqeysto online-ka ama internet-ka xirfadaas oo ah forex-ka cashirkii ugu horeeyey sida ugu kala celiseen iyo sida maxaa la daawasho fiican u gaarsiiseen aad iyo aad ayaan idin mahad celin doonaa cashirkii ugu horeeyey waxaan kusoo baranay horbaxa forex-ka iyo dadkii ka shaqeeyo iyo maxaa la dhahaa wixii hordhays ku saabsanay muuqaalkeena xiga ama cashirkeena xigana wuxuu noqon doonaa inaan kaga hadalno forex terminology-ga ama eray bixinada suuqa forex-ka wada ognahay eray bixin waxaa waaye waa meel walba oo la joogo ama fildi walba oo laga shaqeynayo waxay leedahay erayo u gaare oo la isticmaalo haddii aad dhakhtar tahay ama dhakhtarad aad tahay waxaa jira erayo u gaare dhakhaatiirta iyo dadka isbitaalada ka shaqeeya haddii aad engineer tahay sidoo kale haddii aad tahay photographer ama editor oo kale so fildi walba oo fildiyada kamid a la barto waxay leeyihiin erayo u gaare so marka muuqaalkan waxaa ku baran doona ama cashirkeena labaad eray bixinada suuqa forex-ka haddii aan hore ugu sii socono waxaan ku baran doonaa dhowr eray bixinood oo ugu muhiimsan marka aad ka shaqeynaysid suuqan forex-ka eray bixinada marka waxay erayada ugu badan ee maskaxda kusoo noqonaya aan marnaba ka harayn waxaa kamid ah currency pairs bid and ask price spread leverage margin lot size and long short position intaan waa erayada ugu muhiimsan oo maanta oo dhan la isticmaalo intii aad ku guda jirtay forex-ka mid ayaa u sharxi doonaa mid ayaa u qaada dhigi doonaa insha allah fadlan nala soco qodobka koowaad oo ah currency pairs waxaa horta currency waa lacag pairsna waxaa waaye waa wax walba oo hal shay laakiin laba iskula socdaan pair waxaa waa tusaale oo kale kabahoo kale hadda hal joog hadaa rabti laba xabo waaye halka bis ma lagaa iibin karo ama bidix ama midig ma lagaa iibin karo so marka haddii bidix haysatid kab oo pair ma haysatid waxaa haysataa kab caadi a haysataa so marka waxaa u baahannahay marka inaan horta fahno currency pairs waxay currency pairs waxaa waaye waa laba lacagood oo laisku aadinayo tusaale kale lacagta sawirka inta noogu muuqdo waa lacagta yuuraha iyo lacagta USD-ga lacagta yuuraha waa lacag laga isticmaalo wadamada eurozone-ka ama euro area-da wadamada ku midaysan midowga Yurub iyo lacagta USA-ga so markii labadan lacagood isku maajgareeyo oo isku aadiyo waxay noqonayaan pair ay noqonayaan so markii la akhrinayo laba qaab loo akhriyaa lacagta oo ah kan koowaad waxaa la dhahaa base currency kan labaadna waxaa la dhahaa code currency so marka waa beerka koowaad iyo beerka labaad marka currency pair maxaa waaye macna ahaan ama English haddii aan akhrino waa the exchange of one currency matched up against another lacag oo lagu bedelayo lacag kale oo la isku aadinayo so marka that's waxaa la currency pairs inta badan marka forex ku jirtay currency pairs-ka mar walba waa maqlaysaa qaabka loo akhrinayo waxaa waaye base currency iyo code currency halka lahaa waa lacagta koowaad iyo lacagta labaad terminology ama eray bixintan ugu xigto kale waxaa la lahaa dib maxaa waa horta waa saddex eray oo lasoo kaabiyey dib horta maxay u taagan tahay percentage in bounty bida koowaad oo ah percentage ayada oo in ah iyo bounty-ga waxaa loola jeedaa bib waxaa waaye waa price-ka meesha uu ka dhaqaaqo bounty-ga uu ka dhaqaaqo ilaa iyo bounty-ga kale uu tagay inta u dhaxaysa waxaa la lahaa bib waa the measurement used to express the difference in the value of two currency waa farqiga in lagu muujiyo qiimaha u dhexeeya laba lacag oo ah dib bounty-ga price-kan uu ka kacay ilaa iyo bounty-ga kale uu price-ka gaaray inta u dhaxaysa waxaa la lahaa bib value tusaalaha waa arki doonaa hadda inta waxaa noo taala laba lacagood lacagta euro USD-ga iyo USD JPY oo ah lacagta Mareykanka iyo lacagta Jabaneeska inta waxaa noo taalo
tusaale oo kale bibka marka la xisaabayo laba qaab aa loo xisaabaa. Labada qaab oo loo fiirina waxaa waaye horta marka koowaad waxaan ka bixinay lacagta aa isku manage garaynaysa ama beerka ay haysatay haddii ku jirto lacagta Jabaanka waxaa isticmaalay two decimal aa loo isticmaalaa oo ah tirada boqolleyda oo tobanleyda oo ah iyo jableyda oo ah laba god. Hadoo kale godka koowaad iyo godka labaad. Kaasa marka waxaa la dhahaa markii lacag alla lacagta oo Jabaan lagu bedelayo ama lagu kala sarifayo ayada waxay noqonaysaa godka labaad ay noqonaysaa. Halka lacagaha kale oo kasoo haran ay noqonayaan godka afraad fourth decimal. Godka koowaad, godka labaad iyo godka saddexaad, godka afraad oo noqonaya. Inta lacag oo kasoo hartay oo Jabaanka markii lacagaha ee la socoto maana inteeda kale waxaa loo isticmaalaa fourth decimalka. Si aan u fahanno marka bibka wuxuu yahay oo aan ku sheegnay price-ka meesha uu ka kacay ilaa iyo meesha uu tagay inta u dhaxeyso ayaa waxaa la lahaa bib. Tusaale soo fahno. Marka koowaad waxaa fahmi doonaa ayada fourth decimalka ama lacagaha aan Japanese-ka ama yen-ka aan la soconin. Tusaale oo kale haddii price-ka uu ka dhaqaaqo 1.1025 oo uu tago 1.1035 waxay noqon doontaa 10 pips oo ah suuqan kor u kacay qiimahan rate ama exchange-gan labadan lacagood ayaa kor aaday. Sidee marka 10 ay ku imaatay? Waxaa la sameynaa labada god ee ugu dambeyso iyo labadan god ugu dambeyso ayaa la kala jaraa. Saawad ognahay wuxuu ka dhaqaaqay ama bounty uu ka kacay waxay ahayd 1.1025 wuxuuna tagay 1.1035. Labadan digit ama labadan number ugu dambeyso iyo labadan number ugu dambeyso ayaa la fiirinaa farqigooda. 25 oo ka kacay 35 oo tagay. It means waxaa waaye 10 ayuu kor u aaday. Markaasuu bounty uu ka baxay waxay ahayd 25. Bounty uu tagay ku dhamaadana waxay ahayd 35. So waxay ku tusaysaa marka in qiimahan ama lacagtan ay kor u kacday 10 bib. Tusaalaha kale waxaa tusaalahan koowaad wuxuu ku muujinaa in price-ka uu kor aaday oo qiimihiisa kor u kacay. Haddii marka price-ka uu ka dhaqaaqo 1.1035 oo uu tagay 1.1025ka ayadana waxaa waaye price-kii bounty-ga uu joogo waxay ahayd 1.135 wuxuu imaaday 1.125 oo ah 10 bib ayuu suuqan hoos u soo dhacay ama hoos u soo aaday. So marka taasaa marka waxaa la lahaa bib oo ah price-ka qiimihiisa bounty-ga uu ka kacay ilaa iyo bounty kale uu gaaray inta u dhaxeyso ayaa waxaa la dhahaa bib. Bibkaas marka waajib maahan inuu kor wada aado ama kor u aadaa ama hoos u aadaa. Si laba tusaale noogu cad annagoo isticmaalnay 25 ilaa iyo 35 marka la kala jaro 10 bib oo ah increase uu sameeyey. Halka markuu price-ka uu 35 kasoo dhaqaaqay uu imaado 25 wuxuu sameeyey 10 bib oo decrease. Haddii price-ka hadda 35 markuu ka kacay uu tagi lahaa 50 oo kale 40 oo kale 40 oo kale hadduu tagi lahaa waxaa dhihi lahayn 5 bib ayuu suuqan kor u sii kacay. Ayadoo marka waxaa xisaabeynaa two decimale ama jajabka oo labada gode. Haddii sidoo kale price-kii rate labada digit ugu dambeysa la kala jaraa. Haddii price-ka uu ka kaco 106.2 eber oo uu tago 106.4 imisa ayuu suuqan kor u kici karaa 20 bib iyo kor wada. Maxaa yeelay 20 aa laga kacay waxaa la tagay 40 kor waxaa loo aaday 20 bib. Cagsigeeda haddii suuqa uu 40 joogo price-ka bounty-ga uu maray haddii 40 ahayd uu 20 soo aado oo hoos u soo dhaco imisoo hoos u soo dhaco suuqan 20 bib. So marka waxa lagu xisaabtamayo waxay tahay imise bib ayaa ani suuqan kor ii aaday ama imise bib ayaa suuqan ani hoos u soo aaday. Marka hoos u socotay hoos u soo aaday. Waxaa dhihi kartaa meeqa bib aan hoos u soo aaday 20 30 50 40 60 100 bib waxaad ka heshay. Taas waa bibka
terminology nooxeygana waxaa waaye waa bid, ask price and spread. Bid price-ka, the bid price is the price a forex is willing to sell a currency pair. Ask price is the price a trader will buy a currency pair. The difference between asking and bid is spread. طالع hadalka Ingiriiska waxaa kaga fudud image-ka ku fahmi doontaa. Bid waxaa waaye mar walbo oo qofka oo forex-ka ama trader-ka uu isaga soo iska iibinayo wax. Adiga markaan lacagtan waxaa rabtaa inaad iska iibisid. Markaas waxaa noqonaya bid aad tahay. Haddii adiga aad lacag soo iibsanaysid waxaa waaye ask waaye. So marka labadan marka bidkan ujeedaada aski waxaa waaye waa buy, adaa wax soo iibsanayso ya. Halka askiga waxaa waaye marka adiga buy aa wax soo iibsanayso. Halka bidka ay tahayna sell marka adiga wax iska iibinaysid. So marka farqiga labadan u dhaxeeyo ayaa waxaa la dhahaa spread-ka. Boqsiisa lacagta waa kana currency pair. Askiga waxaa waaye lacagtan marka adiga aad iibsanayso waxay tahay 1.1335 oo laba saaran tahay. Spread-kaas kanne 0 saaran. So marka labadan marka la jaro 0.2 saaran. Haddii inta wax kale number kale waxaan lahayd difference number kala soo bixi lahayd. Spread waxaa la dhahaa ask price-kan iyo bid price-kan. Qiimaha aad wax soo iibsanaysid iyo qiimaha aad ku iibinaysid farqi u dhaxeeya ayaa waxaa la dhahaa spread. Next qodobkan waxaa waaye waa leverage iyo margin. Leverage waxaa waayada waa awoodda qofka wax iibinaya ama iska iibinaya akoonkiisa oo loo siinayo awood oo kale. Leverage horta waxaa bixiya broker bixiyo. Brokerka marka wuxuu ku siinaa lacagta aa haysatid lacag u dhiganto oo aan suuqan ugu kala gareyn kartin ayuu ku siinaa. Wuxuu ku siinaa si maxaa la dhahaa aadan u dareemin in akoonkaaga ay ku jirto lacag yar oo aadan niidinin. Brokerada marka way kala duwan yihiin. Leverage kala duwan ay bixiyaan. Kuwa waxay bixinayaan 13, kuwa 14 bixinayaan, kuwa 15 bixinayaan. 13 marka maxaa laga wadaa haddii akoonkaaga saddex jibaarayaan oo kale. Haddii akoonkaaga ay $100 ku jirtay oo brokerka aa iska diiwaan gelisay ama brokerka aa lacagta ku shubato oo ku siiyo 13 maxay u dhigantaa inuu ku siinayo lacag u dhiganto oo kale 300 oo kale. Hadda inta waxaan ugu taa leverage-kan oo brokerka bixinayay 100 oo ah markii 100 marka lagu dhufto 100 inay noqonayso 10,000 oo lacag u dhiganta camal ayuu ku siinayaa broker si ah ugu shaqaysatay ama awood u yeelatay inaad trade qaadato. Margin maxaa la marka margin waxaa la lahaa markii aad u baahan tahay inaad trade qaadatay inuu kuu sheego trade-kaas inaad qaadan kartid inaad qaadan kartid. Haddii lacagta aad haysid hadday yar tahay oo kale aad rabtid inaad trade-kaas lacag badan aad ku furatid wuu kaa diidaa. It means wuxuu ku leeyahay ma kugu filno. Marka margin waxaa waaye wuxuu awood kuu siinaa inaad adiga account inaad trade aad furan kartid qiimaha aad ku furaysid inuu kuu sheego. Inaadan maxaa la adoo akoonkaaga $100 ku jirto haddaad dhahday 10 lood aad ku fura oo kale. So marka margin-ka markaas lacag kugu filan maysid. Tusaale oo kale marka leverage-ka tusaalihiisa arkayna. Let's say adan akoonkaaga inay ku jirto $10 oo kale capital. Haddii leverage-ka uu ku siiyo 10 to 1 you can open a position size for 10,000. Ayla 1,000 ay start 10 ku siina waa ku dhufanay 10 ku noqonay. Haddii marka leverage-kaaga uu ku siiyay broker-ka way tahay boqolkiiba hal عشان 100:1 waay. عشان haddii akoonkaaga aad $100 ku shubatay oo isagana ku siinayo 100 it means waxaa waaye 100,000 haysataa. Alashan 100,000 size amal furan kartaa akoonkaaga ku siin karaa. Lot size maxaa la lahaa lot size ayada waxaa waaye waa lacagta aad ogashahay inaad dealkan aad ku gashid trade-kan oo kale oo adiga aad ogashahay inaad lacagtan ku faa'iido. Lotka sidiisaba 4 qaab loo qaadaa waa mid standard iyo mini iyo macro iyo nano. Nano waa midka ugu yar, micro waa midka iska medium-ka oo hooseeya
mini iyo standard waa midka waaweynka oo adiga $1 $10 waxyaalahaas oo lodkaas mid walba oo tusaalihiisii waa arki doonaa tusaaloo kale inta lodka maxaa lagu dhahay for example you wanted to buy a standard a lot of 1,100 units of JBP USD exchange rate is 1.24 meaning you will buy USD 1.24 1 British pound. What will happen is that will you purchase 100 pound 100,000 pound with 124,000 USD dollar عشان waxaa waaye lodka lagu sheegaa haddii lod aa ku gashi oo ah 100,000 oo unit 1.24 ka maxaa waa reedka markaas labada lacagood lagu sarifayo haddii marka u baahan tahay inaa bixisi 1.24 for 1 British pound haddii aad rabtid halkii pound inaa USD ku bedeshi waa 1.24 hele maxaa dhacaya marka haddii barjeska ay iibsanayso 100,000 oo pound aad rabtid inaad dollar qaadato waxaa bixinaya markaas 24,000 dollar 24 lacag u dhiganto ayaa helaysaa kan ugu dambeeyo ah long and short position oo ah terminology ugu dambeeya ama erey bixinta ugu long and short position ayag waxaa loo fiiriyaa waa market direction ah suuqa meesha uu u socdo inaad sheegto sidaba forecastka markii directionkiisa ama trade la furayo kale laba meel loo furaa ama inaad tradeka buy u furati ama inaad tradeka sell u furati ama inaad trade kor u socdo aad raacaysinta ama trade hoos socdo aad raacaysinta longii marka waxaa macnaheed maxaa waaye ama inaad buy samaynaysid ama bullish market oo ah markaas suuq kor u socdo aragtay adina waxaa u raacday kor shortigina waxaa waaye inaad sell samaysid ama bearish market inaad samaysid aad ugu mahadsantihiin dabashada muuqaalkan fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay marka ugu horeysay booqashadaada inaad subscribe share like iyo share iyo commentina ha ka iloowin aad ugu mahadsantihiin